naftayday kolkaaga nolol habooyo taxariisiisa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دوّا كنالكينا وضن فاشيون كنال أصحابتي دقالقة ووان السلام كسر الدنيا دبيدة جوجتان ومركلا يسكسر نقدو عن وناكسة وحندي والنعاوة فنانكي فنانة الرياضة منون كنا عم بفنانكي فنانة ذا وعيه وسلطان سيرار أو شوقيسي شرملكو قبسومي وايه أو هادنا مر لبعض جري مال كلا أيام كده جدونا إن شاء الله بإذن الله كريم جري أصحابتي دقالقة عبال أينو مركو هره فلانقين سلطان سيرار سادو ذا أوجيدين بع شو بوكو قبسنية waddanka Jarmalka uu ku qabsanayay asxaabtada qaaliga marka haddana wuxuu yidhi showgii wuu qabsoomi waayay sababta keentay inuu walawaanu inoo wadaagin sababta keentay balse laakiin haddana dad badan oo Jarmalka jooga lagu tuhmayo ama lagu sheegayo oo la leeyahay dadkaas ka dambeeya walawayna inagu xogogal hoose saas u sii ahayn laakiin xogogal aan soo maqalnay oo dad u dhadhawiyay inoo sheegeen waxay sheegayaan inay dad badan ka dambeeyaan oo Jarmalka jooga sida shiina culaayo oo kale balse laakiin maxaa sababta keentay maxay tahay Sultan Serar in Sweden lagu weeraray airport-ka oo dad badan waxaan ku dhibaato ugu geysteen oo leeyri dawladda ka dacweynayeen haddana imkana Jarmal haddana showgiisa uu qabsoomi waayay wallahi runtii ma fiicna in qofka bini'aadanka xasidid qofkuna markuu uu darajo gaaro amba uu heer gaaro ay dadku xaasidiin u yimaadaan oo xaasidiin badani uu yeeshaa waxaana lagu ducaystaa Ilaahay oo xaasidkayga badi laakiin xaasidnimadu ma fiicna fankana ha laga daayo qabiilka amba qoqobka amba waxyaabahan la halmaala ma qurux badna inaad adigu dadkan fanaaniinta ku dhexmilanta maadaama aanad fanaan ahayn aad tahay shicib amba daawada aad tahay asxaabteeda qaaliga runtii waxaan la yaabay waxa weeyaan in mar labaad uu showgiisii leeyahay haddana darayskii uu bedelay sabab darteed marka bal ila soo daawada waa kan isagoo hadlaaya asxaabteeda qaaliga idinkamid hordegdegay waxaan si sharaf iyo sumcad ku dheehan tahay anigoo codkaygu dheer yahay rabaa inaan la wadaago dhammaan asxaabtayda faniskayga ku nool Germany meel walba ay kala joogaan in showga xalay noo qabsoomi waayay ee 23 ahaa aan u bedelanay 26 bisha haddii Ilaahayga boqorka raali ka noqdo adreeska hoos baan idinku soo qorayaa kasoo qaybgal wanaagsan waxaan si xushmad leh ugu mahadcelinayaa asxaabteeda qaaliga wad soo wada aragteen baan jeclahay in adreeskii xataa laga bedelay oo adrees kale lagu qaban doono showgan oo dhici doona habeen dambe bisha 25 bisha qabsoomi doona haddii Ilaahay awood la qadaro asxaabteeda qaaliga waxaan leeyahay fanka laga daayo dhibaatada fanka laga daayo dadkan ku mashquulsan sida runtii lagu sheegay shiina culaya baa kamid ahaa leeyahay dadkii showgiisu inuu qabsoomi waayo ku jiray walawayna inagu ogeynana xogogal hoose inaan ka haynin bis laakiin inaan fanaaniinta loo kala xigtaysan inaan fanaaniinta lagu mashquulin fanaaniinta iyaga iska ka jecel fanaaniinta iyaga waxaan ku meel wada fadhiista iyaga iska ka jecel iyaga iska ka yaqaana in fanka laga daayo qabiilka amba waxaan xun ee lagula dhaqmayo ayaa muhiim ah Sultan Serar saadu wada ogeydeen bay Sweden waxa ka dhacday in dad badan airport-ki ku qalalaasayeen marka waxaan leenahay Sultan Serar hore u soco cadowga hoosta ha galo ha u bixin showgaaga qabso kala qarxiso cid kugu mashquulisay ma jirto waxaan oran lahaa kale inuu soo jeedin lahaa talo waxa jira inama waxa jira Allah inoo daayay nimadeena inama aqliga intay bambiima meeshan isku dhiibeen aqligii bambiimada u la imanaya markay waxaan oran lahaa in aqligii wadankii ku soo dabaala sheekada waxa marka imika jirta qof walaalkaya oo waxaan ku $20 lagu soo galay amba $10 lagu soo galayo ha xaasidin ee iska daa hadaan tagi karin iska daa ha qalalaasan aad baan salaamay asxaabteeda qaaliga midkiiga ku kulmayno naftayday kolkaaga nolol habooyo taxariisiisa